السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذين سلامي دمانتينا meel walba aad joogtaan ku soo dhawaada muuqaalka maanta. wararkii ama dhacdooyinkii dhacay maalimahan la soo dhaafay. daawasho wacan. dalka Holland waxa ka jiro ama waxa jiro program laga soo daayo TV-ga. Programkan waxa laga soo daayaa TV-ga oo dadka Hollandeeska yaqaan. Programka waxa laga soo daayaa muuqaalada oo duubtay kaamirooyinka dukaamanka ku dhagan. Dukaan la jabsaday, dukaan la dhacay, dukaan tuug galay, tuug la soo qabtay, tuug la raadinayo. kulli programkaas ayaa laga soo daayaa. Teamka oo programkan ka shaqeeyo shirkadaha security-ga oo kaamirooyinka ayaa u soo diraan muuqaaladaas. Tuuga imaaday dukaan uu galay wuxuu dhacay tuugaas ma la yaqaano. muuqaaladaas kaamiradaas duubtay waa la qaadaa programkan ama dadkan teamkan ayaa loo diraa. Teamkii waxay sameynayaan barnaamij ay ka dhigeen adduunka dhan maahan Hollandan waxay Holland degan dhan way daawadaan. waa program caan ah yani musalsal oo kale ay u daawadaan habeen walba. Ala ay taxal teamkaas markay ay muuqaaladaas soo qaataan waxay soo saaraan barnaamijka yani barnaamijka ayaa lagu soo gudbinaa. dukaan oo xag ku yaalo xaafadda hebel ayaa waxa dhacay nin wajigiisa si fiican ma loo yaqaano si fiican ma loo arka marka hadii aad aqoonsatay lambarkan naga soo wac. Programkan teamka ama programkan wuxuu la shaqeeyaa yani dawladda booliisku ayuu la shaqeeyaa. program oo ha socoto maahan qof youtuber sameystay maahan ya program dawladda la shaqeeyo waay. marka tuugada oo kaamirooyinkaas duubtay ayaa la soo qaadanaa muuqaaladaas ayaa la soo qaadanaa programka barnaamijka ayaa lagu soo daynaa. fadlan hadii wajigan aqoonsatay laga soo hadal. marka waxa dhacday nin ayaa wax dhacay nin 55 sano jira waa yeel waay ma ogi Yurub waa yeel 55 sano wali waa yeel maahan laakiin ala ay taxal waa yeel waay 55 sano meel uu soo dhacay dukaan dahab iyo waxa soo dhacay asaga iyo kuwa kale gurigiisu aaday waxa la gaaray xilliga programkiisu soo galay asaga mu rabi inuu isdaawada ma ogi barnaamijkii uu shitay. barnaamijka yani familada Hollandeeska dhan marka dagaaladan dhan way yaqaanaan. barnaamijkaas way daadan waa la jecel yahay. marka barnaamijkii uu shitay tuugada maanta tuugada dukaanka waxa ka dhacay soo daawanay subhanallah waxa lagu dhahay markii oo qeybta asaga la raadinay markuu soo galay ma aragtay iyo xaaskiisa qolka ka soo gashay dhab isheeda ku dhacday dhab waxa dhacday tuug la raadinay waa kana intuu ii jooga. isla markii waxay sameysay booliiska ay wacday alo kaali waa kana intuu jooga waa la qabtay booliiska ala tool. ninka hadda waa la qabtay خلاص saddex qof kala la jiray wali waa la sii raadinooyaa ku kala hadii aqoonsatid laga soo xiriir wali programku uu socdo habeen walba. marka wargeyska oo qisadan soo daayay ama wargeysyada mid ka mid ah ayaa wareystay ninkii la qabtay waa yeelka uu wareystay maxaa ku geystay inaa shidid programkaas adigoo waxa adiga wax soo xaday gurigaada xaaskaada kula jooga maxaa u shiday. jawaabtiisa waxay ahayd waxaan rab inaan is arko hadii aan is aqoonsan karo iyo in kale yani hadii aan is aqoonsado خلاص dad kale way aqoonsanayaan waa dhuumanaa uu dhahay laakiin wali qabti baad خلاص waan ku jiraan bis way. dhowr qofood oo ka tirsan siyaasiyiinta dalka Jarmalka ayaa codsaday gabar baasaboorka Jarmalka qaadatay in laga celiyo. baasaboorka la siiyay sharciga weyn ay qaadatay in laga ceshto maxaa yeelay Falastiin ay taageertay. gabadhan waxa la yiraahdaa Riim 2015 meelahaas ayaa waxay soo gashay ama 2015 ay Jarmalka imaatay xilligaas ay caan noqotay maxaa yeelay Angela Merkel ra'iis wasaaradda Jarmalka markay ahayd waagaas duqda taasay qaabishay way ku ooysay inaa wadankay u laabto marabi dagaal ka jiro wadankay way u calaan cashay kadib Angela Merkel way soo dhaweysay ofiskeeda ay ku soo dhaweysay gabadhaas sheeko dheer kadib ma aragtay sharciga yaray heshay deganaashada ay heshay xaanshooyinka wax kasta ay heshay 2023 miya waxay heshay baasaboorka weyn خلاص yani xuquuqda way baratay sharciga way baratay luqadii way baratay iskuulada yani isdhaxgalka oo dadkan gaaladan ay raadinayaan ma aragtay marka lagu keenay markii tahriibley marka tahay marka imaatid ma aragtay waxa lagu qasba isdhaxgal indimaaj waxa la lahay isdhaxgalkaas way dhameysay okay tafadal baasaboorkeed waa la siiyay Jarmanees atahay allah soo sheekadaas may ku dhamaatay may dagaalka markuu bilowday khariitada oo Falastiin ma aragtay ay soo saaratay waxaynu ku soo qortay Falastiin waa xor laga bilaabo webiga
إلا إيو بد أريغاس يعني وجملة أو عان oo dadkan gaalada ka xanaaqo Falastiin waa xor laga bilaabo webiga ilaa iyo badda waa xor way ka xanaaqaan marka gabadhaas oo Reem la yiraahdo ereygaas ay waxay ku soo qortay Instagram-ka sawirkay soo saartay qoraalkaas ay hoos ku soo qortay ama raacisay mid kale oo la yaab kale oo ayaga la yaabaya gabadha ma la yaabaya ayaga yani gabadhan Falastiiniyad waay asalkeed Falastiini waay maxaa ka filanay inay ku taageerto bilaa caleeg yani aniga hadda dagaal ayaa waxa ka dhacay midland Soomaaliya iyo wadan kale kadib ka waran hadii la dhaha hadii taageertid islaamada Soomaaliya hadii taageertid sharciga waan ka cashanayna ka waran taas oo kale ayaa socoto hadda taybe ani wadankay waan taageeri karaa ma taageeri kartid ala ay xal gabadan oo la yiraahdo Reem waxay ka soo jeedaa dalka Falastiin Gaza ay ka soo jeedaa marka hadda waxay taagan yihiin siyaasiyiinta oo qoraalkaas arkay way xanaaqeen waxay taagan yihiin baasaboorka la siiyay sharciga la siiyay halaga cishto mid wuxuu dhahay anaga oo kala uma dhaqanto gabadhan baasaboorka ay qaadatayna laqdabo ay ku qaadatay ama khidaac khiyaano ay ku qaadatay mid kale wuxuu dhahay waan ku degdegnay in baasaboorka siino dadkan oo kale oo ka soo horjeedo gumeystaha Israa'iil yani ma ogi waxay rabeen markii baasaboorka lagu siin raba ama sharciga marka lagu siin interviewga lagu daro su'aashaas ay ma taageersantahay gumeystaha yes okay sharciga waa helay mardhow saasay keeni doonaan laga yaabo intaan ka badan mush caarif wala ma ogi mid kale oo saddexaad wuxuu dhahay dadka inta sharciga la siinin waa ina si fiican loo baaraa iyo sidoo kale in ay ogol yihiin jiridda Israa'iil macnaha qofkan siyaasiga wuxuu ku fikiroyaa ama ra'yigiisa wuxuu taagan yahay inta qofka la siinin sharciga waa ina yani la fiiriyaa yani fikirkiisa muxuu ka qabaa jiridda Israa'iil inay jirto ama ina la baabi'iyo ashraa'ik ma ogashahay inay joogto weligeed ama waa jeclaan lahayd ina la burburiyo su'aashaas ina lagu dara uu taagan yahay sheekada saasay maraysaa Allah istur 1972 waxaa dhacday qiso la yaab leh taariikhda markay ahayd 26ka bisha January ama bisha koowaad 1972 shaqaalaha diyaaradda ee GAT Yugoslavia waxaa ka dhacday qiso يعني ريكورد جبسي دياردان waxay ka soo baxday Copenhagen dalka Denmark ay ka soo baxday waxay u socotay Belgrade oo waagaas caasimada dawladaha Yugoslavia ahayd maantana loo yaqaano Serbia kulligeen waa taqaaniin على اي حال دياردان waxay ka soo baxday Stockholm Copenhagen kadib Copenhagen Belgrade ay u sii socotay marka ayadoo hawada ku jirto ayaa diyaaradda waxa ku yimid cilad taasna waxay keentay in diyaaradda ay qaraxdo diyaaradda hawada ku jirtay cilad ay keentay way qaraxday qaraxaas kadib diyaaradda waxay noqotay saddex qayb يعني خلاص way 3 saddex qayb ay noqotay inta diyaaradda ku jirtay inta diyaaradda saarnaa dhan خلاص way dhinteen kulligood way dhinteen qarax normal laakiin waxa la yaab ah hal gabar ayaa ku jirtay ma ogisay u noolaatay gabadhaas hawada yani diyaaradda markay kala go'day meesha ay taagna bul may soo dhacday Allahu a'lam diyaaraddaas saddex qayb noqotay oo qaraxaas dhacay intaas oo qof ku dhimatay ayada way ka badbaaday dhulkay ku soo dhacday meeqa mitir 10 kilomitir way soo dhacday maanta dhacdadan waxaa laga soo wareegtay yani 50 sano gabadhaas ama hadda waa yeel way u maleynaa waa yeeshaas ma aragtay rikoorkaas ay jibisay ilaa hadda qof kale ma jibinin qof meeshaas ka soo dhacay wax bagaarin weli ma la arkin ma sukiya wax bagaarin hadin wax uu gaari يعني dhaawac way gaartay isbitaal ay ku jirtay 10 maalin isbitaal ay ku jirtay wal daaway laakiin had maanta caafimaad ay qabtaa yani way ka badbaaday haweeneydaas ama gabadhaas oo maanta haweeney ah waxa la yiraahdaa Vesna maanta waxay ku jirtaa yani buuga Guinness oo rekordiyaasha lagu qoro score record jibisay buugaas ayaa lagu qoray qofkii hawada ka soo dhacay barashood la'aan oo wili nool yahay yani 10,000 mitir ka soo dhacay oo wili nool yahay buuga Guinness waa lagu qoray dhacdadan kadib 30 sano kadib 2002 ayaa waxay sheegtay Vesna inaysan ku qorneen diyaaradda yani diyaaradda ayada kuma qorneen laakiin waxay ku heshay gabar isku magac yihiin yani gabar isku magac yihiin magaca isku ekaaday sidii aan ku galay dhahday waa sida ay sheegayso mid kale waxay sheegtay in ay saarneed yani diyaaradda qaybta dambe dibka ay saarneed dadka qaarna waxay dhahaan yani dadka oo waxyaabaha soo dhigay ma aragtay waxay dhahaan haddii aday diyaaradda meesha oo laga badbaadinta meesha u badan tahay badbaadka meesha u badan yahay waa qaybta dambe mar walba
jugti intaa gaaraysaa adi hoos gadaal haddaa fadhiisid waa badbaadin ilaahay hadduu ku badbaadi la ku badbaadin karo gadaal fadhiiso ama baalkeed xataa haddaa qabsadin ilaahay haddii ku badbaadi la badbaadi adi laakiin qoftan Vesna waxay dhahday qaybta gadaalan fadhi saasan ku badbaaday mid kale 2009kii ayaa waxaa la ogaaday ama waxaa laga shakisanaa ilaa 2009kii waxaa laga shakisanaa in oo dowladda Croatia ay soo riday diyaaradda yani ciladay ka imaatay way qaraxday ma soconayso cilad way dhacday waa ka yeelna laakiin way qaraxday wax aqli galay ii sheeg marka ilaa xilligaas ilaa 2009kii waxay shakisanayeen in Croatia soo riday diyaaraddaas عشان waagaas dagaal ka dhaxeeyay Yugoslavia iyo Belgrade bla bla sheeko dheer way laakiin 2009kii khalaas way ogaadeen Czechoslovakia ayaa waxay sheegtay in ay xilligaas yani diyaarad cadow ay u maleeyeen diyaaradan hawada iska maraysa oo cadow way isdhaheen way soo rideen sheekadan waxay dhacday 1972 kuwaana waxay qirteen inay soo rideen diyaaradda 2009kii ka hor ma ogi way hurdaayeen Allahu a'lam wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Holland ayaa ku dhawaaqday in la faafiyay dokumentiyo sir ah warkan ayaa yimid kadib markuu uu daabacay wargeyska NRC qoraal ka socda safaaradda Holland ee Israa'iil safaaradda Holland waxay dhaleeceysay weerarada arxan darrada ah ee Israa'iil ku wada Gaza sidoo kale wargeyska NRC wuxuu daabacay arrin ku saabsan يعني diridda alaabaha ama agabka diyaaradaha F-35 Holland yani Israa'iil waxay u diraysaa yani alaabaha lagu sameeyo diyaaradaha hadii qalabkaas wax ka halaaway deelkoha shingiyaha indreesh diyaaradda waxyaabahaas maaragtay way u diraysaa hadii idinka halaaw waa kana alaab waa idin hayna laakiin kuwa kale masaakiimada maaragtay cuntada ina loo geey maaragtay iyo daawooyinka waa lagu isku tuugoya please no fasaxa inaan gelino cuntada algu jira intana laakiin waxa marka wargeyskan wuxuu qoray waxyaabo ku saabsan yani arintan in Holland ay dirayso alaabahan diyaaradaha loogu talgalay marka qareemada wasaaradda arrimaha dibadda ayaa ka digay khatarta ka iman karto arintan oo ah ku xadgudbidda shuruucda dagaalka yani waa loo sheegay iska ilaaliya ha sameynina waa sharci darro alaabtan aad diraysiin yani khalaas sharciga oo shuruucda dagaalka ayaa jabiseen laakiin ayaga maya ayaga gaalo way marfuuc anhum alqalam af Soomaali maxaa la qalinka wax ma qora ayaga saasa umalayna qalinka wax ma qora ayaga banaan baxa sameynaya lagu diidooya kuwaana diyaaradda alaabti lagu sameey laha diyaaradda hadii ka halawda diyaarad wili ma halaawin ya la alla hadii halawda it's ready for you yani diyaaray ku tahay alaabtan teeni ma la ogol ayaga taada leeyahay qareemada waxay dhaheen dhibka ka iman karo yani sharciga jabinoosin joojiya taas ay tahay ma joojinin wili way sii wadaa marka wargeyskan haddana sirtaan uu keenay oo ka socoto safaaradda Holland ee dalka ay ku taala dalka Israa'iil sirta waxay ahayd yani qoraal oo qoray sirkaal ka tirsan ciidamada wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Holland oo ku taalo gumeystaha meesha uu haysto ayaga waxay ku dhahayaan ciidan waay wuxuu ilaalinayaa safaaradda arrimaha dibadda arrimaha uu ilaalinayaa laakiin been waay ciidan oo meesha joogo waay hadii loo baahdo way galayaan dadka mataqaaniina gaal le waay ala ay taxaltoodan u socodsiinayna sirkaalka ma aragtay wuxuu ilaalinayaa safaaradda wax kala ma sameynaynin diyaaradda ma aragtay diyaarad ma xakeeni safaaradda uu ilaalinaya marka qoraal asagu qoray safaaradda inta xiriirka dhaxayo ayaa soo baxay yani sir fakatay wargeyskan ma ogisuu ku helay sirkaalkaas wuxuu sheegay in oo yani in Israa'iil si xun u duqeynayso dadka ku nool yani dadka caadiga ah yani macna ahaan xaasidnimo ay u garaacayso mid kale wuxuu sheegay in ay ka tahay inay burburiso qasdigeed waxa waaye in ay burburiso dhulka dhan dhigto wax kasta Gaza inay dhulka dhigto ayaga hadalkaas TV-ga hortood ma ku sheegi karaan way cabsanayaan ma ogi sababta laakiin dhaxdood hoos way isku sheegan marka wargeyskan wuu soo qabtay hadalkaas ma ogi meeshuu ka keenay Hollandeeska hadda siyaasiyiinta hadda afkay fureen hadalada yani wadankeeni banaanka inay ka baxaan maahan banaanka inay baxaan ma ahan bla bla sheekadaas ay bilaaween mid kale way beenaysay yani waxay dhahday sirtan been way yaadhe anaga wax ma sheeginay dhahday Israa'iil xaqay u leedahay inay isdifaacdo ayadoo raacayso qaanuunka caalamiga aslan yani
قانونك عالمي إذنك ما كسب حسين يا إفهمها أيق ما كسب بحوين والله مؤجي أيق ما كسب بحوين محكمة الدولية مخالك ولا ماذا يا أنت هذا إسك هذا الواي أوكي هذا دقيسني إسك دقيس إسك جوك هذا دقيسني عادي وإسك بحكرتها مخالك ولا ماذا أنت إذا صوب بندق وحمد السلام عليكم السلام مركا وحاجر تعال قولها المحكمة الدولية أنت كتالا هولن قفكي ربنا أيقوى حكومة يعني محاكم وزارة يعني قفكي حربي قفكي مجرم حرب سيدا صدام حسين إيو مدري إيش إلا ونحريست كواس أو كلا أيكو أذكيين أيقا لكن هذا وحي وحكا دعايو مايا هذا كوا وحاجر يقول لك شرعي وحاجبينه سال الله مايا أنك ما أش ما جرت خلبك الديارة دا ديبوسا هو كدل أدليضهي labadooda isdagaalooyin qof dhagax uu heesta qofna qori uu heesta iska dhaaf yani saas oo kale way iska dhaaf isdagaalan kii qoriga heestay ayaa la sii galowsa ya allah yani seeway mid kale hadda waxa dhacday hadda fiiriya Yemen sheekadan waxa yani sheek iska hadal way wax toosan maahan waa iska hadal way Yemen waxaan u maleynaa waa meesha kaliya dadka walwaalan wala markhami waxa la hayaa Israa'iilay ay duqeynooyin lagu dhahay wax la soo ridooyin doon iska marayso hawadaas meeshaas badda iska marayso jaadkiisu tufi doontii ka dabbaxay dhab doontii ay qabsadeen إسرائيل ويسوبودي وحنا لا دونت أنا كمالها نيتاجنتهي محاول علن كي من ما يا هذا علن كلا كتاجنا دونت يعني بشكل نروي مفهمت كل يوم ما خشين أملينا مركا يمن هاد وخف ضدك كلية يعني ضد والما ده هنا أيق توضع هي ستة رون أنتي يمن على باب الله واي محان هنا ميتين ميت وأنا أنا كأصلا هلوك آخرين وجرتك كذا خلاص ما حسمين هنا إسرائيل يلا دقال يلا حوتيين توحكوا على الملهن دون جدك اسكمريوس أبوال سو قبتي انت سو عرب أواكاس ويتاقيين أنا لايفونك في عناية وأدلدل مكرا على أي حال يقول لك ديار إسرائيل وحيد هذا أنا كملهن دونتاس وحا اسكله ما هذا مريكان كا اسكله جابانا لقى إجارته مياه موجي إنجليز كا اسكله شيناس كا إجارته تاس وحلو دوه متغانا هذا عشان أنا كوانا مشغول سنة هي إنجليز سو يصبح يهلل جو بح بدل كي بح يهيلي واي دون تاس إيك سو خط إن شاء الله أسكت دلدل معي أركا والله يمن فيري هذا تدك ويدا مخالكو نماذج السلام عليكم.